بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fadhigan waa fadhigii 11aad ee ka mid ah fadhiyadii ramadaanka iyo su-aalihiisa ku saabsanay ee aad kala socon jirteen kanaalka xogta salafka. fadhigeennan galabta insha allahu tacaala waxaan kusoo qaadanaynaa su-aalihii walaalada ayna soo gaarsiiyeen qeybo ka mid ah 5 su-aalood baan kusoo qaadan doonaa. su-aashan saa'ilka waxa uu leeyahay ugu horeyso zakaatulfidrigo waxay ku waajibaysaa qof kasta mase dad gooni ayaa laga rabaa? bimacnaa wuxuu ka wadaa sida su-aasha ka muuqato qofkii aan soomin iyo qofkii soomay iyo kan yar iyo kan weyn dhammaan miyaa laga rabaa mase dad gooni iyo inta soontay unbaa laga rabaa? jawaabtu waxaan leenahay zakaatulfidriga ama zakada la bixiyo ramadaanka gabagabadiisa la bixiyo waxay ku waajibaysaa qof kastoo muslima, qofka ha noqdo qof yar ama ha noqdo qof weyn ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ama xor ha noqdo ama addoon ha noqdo wax allahi wuxuu doona ha noqdo, qof kastoo muslimiinta ka tirsan ayay macnaha ku waajibaysaa zakaatulfitriga. shardi ma aha inuu soomay iyo inaadna soomin. hataa dadka cudurdaar dartii soonka ugu tagay ee axkaamtooda qeybo badan aan soo marnay sida waayeelka iyo qofka xanuunsan iyo musaafirka iyo wixii lamid ah zakaatulfitriga way bixinayaan. marka zakaatulfitriga qofkii soomay kelix looma shardiya, qofka soomay iyo qofkaan soomin dhammaan way wada bixinayaan. waxaana arrintaa culimada u daliishadeen nusuusta ku soo aroortay ee tilmaamaysa zakaatulfitriga inay waajib tahay. ma ayna kala qaadin qof soomay iyo qof aan soomin uma ayna kala qaadin. saas daraaddeed marka dhammaan waa laga rabaa. wallahu aclam bisawaab. saa'ilka labaad wuxuu leeyahay zakaatulfitriga ma laga rabaa dadka baadiyaha jooga xoolaha raacanaya, dadka baadiyaha iska degan xoolo raacatada ah zakaatulfitriga ma laga rabaa? jawaabtu waxaan leenahay nacam. sidaan horeyba usoo sheegnay zakaatulfitri qof kastoo muslimaa laga rabaa ee haddana kari karo inuu zakada bixiyo, oo maalinta ciidda iyo habeenka ciidda ah asaga iyo carruurtiisii intuu mas-uulka ka yahay oo biilkooda uu saaran yahay wax ka dheeraad ee haysto ayaa laga rabaa. hadday marba sidaa tahay dadka reer baadiyaha waxay ka mid yihiin dadka muslimiinta ay ka tirsan yihiin, xaggana dadka ay zakada ku waajibtay ka mid yihiin oo xoolo ay leeyihiinoo haddee waa dad nool wey. waxayna u badan yihiin dad wax haysto haba yaraadeen hadday rabaan waxooda. saas daraadteed marka way ku waajibaysaa. culimada qaarkoodna ijmaac bay soo guuriyeen sida ibnu qadaan iyo keyrkiisba in ay zakaatulfitriga ku waajibaysa dadka baadiyada joogo ee miyiga degan. saa'ilka saddexaad baan rabaa cafwan wuxuu leeyahay zakaatulfitriga ma la siin karaa dadka aan muslimiinta ahayn? maxaa yeelay hadda inta badan dadka muslimiinta ee waddamada gaalada ku hoos nool ee ku dhex nool dad badan baa u shaqeeya oo kirishtaana oo aan muslimiin ahayn. marka ama deris ba ila ah zakaatulfitriga kuwaa ma siin karaa? jawaabtu waxaan leenahay maya. zakaatulfitriga dadka la siiyo waxaa weeyaan dadka fuqarada iyo masaakiinta muslimiinta.
waana miduu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu xikmadda ka hadlayay zakaatulfitriga loo jideeyey bucmatan lilmasaakiin masaakiinta lagu quudiyaa buu nebigu yidhi calayhi salatu wasalaam ay quud u tahay masaakiintu waa masaakiintu lmuslimiin weeye zakaatul amwaalka markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlayay mucaad markuu u daray yaman ee uu ku yidhi towxiidka u sheeg haddii ay ka aqbalaan haddana 5 salaadood u sheeg haddii haddana ay kaa ogolaadaan waxaad u sheegtaa buu ku yidhi zaka in ilaahay xoolahood zaka in lagu waajib yeelay fatu'khadu min aqniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim tu'khadu min aqniyaa'ihim kuwooda wax haysta oo muslimiinta ayaa laga qaadayo ku waajibtay faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaraa'u lmuslimiina laga wadaa fuqarada ayagoo ku dhex nool ee muslimiinta ayaa dib looga celinaya marka zakaatulfitrigo iyo zakada kale midna lama siin karo dad aan muslimiin ahayn oo gaalo ay lama siin karo walow Abu Xaniifa iyo qaarkood ay masalada war ka qabaan laakiin sida saxda culimadu u badan yihiin adiladan ay tilmaamayso waxa weeyaan inaan qof aan muslim ahayn zakada aan la siin karin ama zakada amwaal ha noqoto mid xoolaha laga bixiyo ama zakaatulfitri ha noqoto culimada qaarkoodna sida ibnu mundir raximahullahu tacaala kitaabkiisa al-ishraaf ijmaacu lmuslimiin ama ijmaacu lculamaa buu soo guuriyaa in zakaatul aan la siin karin zakada inaan la siin karin qof aan muslim ahayn saa'ilka afaraad waxa uu leeyahay qofka haddii jirkiisa wax camburiyo iyo finan iyo wax ka soo baxaan macnaha waxyaalaha yaryarka oo qofka wejigiisa ka soo baxa ama jirkiisa meelo ka mid ah boogaha ka soo baxbaxo haddii marka intuu tuujiyo ama uma joojiyo ee uu dhiig sidaa ugu yimaado uu dhiig ka keeno soonkiisa maxay u dhimaysaa arrinta noocaas jawaabtu waxaan leenahay maya maxaa u dhimi mayso waxyaalaha yaryarka oo sidaa kale isku soo baxayna ee dhiigga yaryarkii waxyaalaha yimaaday soonkaadii waxba yeeli maan insha allahu tacaala saa'ilka ugu dambeeyo waxa uu leeyahay toobinta ama xijaamada waxa loo yaqaano soonka ma burisaa haddii qofka isagoo sooman macnaha maxaa la yidhaahaa uu istoobo soonka miyay burisaa haddii aad tirahaan soonka ma buriso xadiidkii maxaa laga yeelaya uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afdar alxaajim walmaxjuum wuu afuray midka wax toobay iyo kan la toobay labadu way afureen jawaabtu waxaan leenahay xijaamadu ama toobinka soonka ma buriyo calaa asaxi alaqwaali alculamaa culimada aqwaashooda sida ugu saxiixsan ee raajixa xoogga badan soonka ma buriso laakiinse waa laga yara fiican yahay culimadu karaahi bay qaarkood ku tilmaamaan oo qofka sooman waxaa u fiican inuu iska daayo ilaa uu ka afurayo ee aan istoobin baa u fiican laakiinse hadduu istoobo soonka kaga jabi maayo xadiidkaasa aad sheegtay ee su-aasha la socdo xadiidkaas waana mansuukh weeyaan waa la nasakhay oo warkiisa uu horreey waxaa ka dambeeyey xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo sooman inuu istoobay tilmaamay saa daraaddeed marka kaa laguma dhaqmaayo sidaas ay culimadunu iyay kaga jawaabeen oo xadiidkan dama ayaa ka dambeeyey fadhigeennii 11aad oon galabta su-aalaha 11 ku soo qaadanay intaa ayaan insha allahu tacaala kusoo gabagabaynaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala ramadaankaa sii gabagabada inuu ilaahay naga aqbalo cibaadaadka kala duwan oo la nimaadno inuu ilaahay naga aqbalo subxaanahu wa tacaala kuwii naarta laga xureeyo oo janno nan la geeyay ilaahay inuu naga mid dhigo subxaanahu wa tacaala aan weydiisanaynaa dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan inuu ilaahay badbaadiyo subxaanahu wa tacaala dhammaanteen inuu fitankan socda iyo cuduradan wareegayo inuu ilaahay naga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala annaga iyo ahalkeen iyo qaraabadeenna dhammaan iyo muslimiintaba ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala in fadhigiisa xigo
nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo inuu ilaahay nagu kulmiyo. hada wabillahi towfiiq. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه لا تنسوا وسلم. الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.